asalaamu calaykum kusoo dhawaada qaybteennii afraad xalaqadeennii labaad ciwaankeedunu noqonaya igu habboon qofka kugu habboon laguma garto oo keliya hadalkiisa iyo muuqaalkiisa laakiin waxa uu leeyahay astaamo kala duwan oo ka soocaya dadka dunida ku nool oo dhan beenna waa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa marka aad la kulanto qofka aad jeceshahay ama aad ka hesho qofkaasi ahaw sida aad sababta oo ahay sidaada ayaad ku qurux badan tahay ha iska dhegin waxaadan adiga ahayn sababtoo ah jiritaanka waa fashilka bilowga haddii aad tahay qof jecel deganaanta ha iska dhigin qof fudfudud si aad ula jaam qaadid haddii aad tahay qof aamusnaantiisa badan tahay ha iska dhigin qof jecel sheekada badan haddii aad tahay qof dhaqaalahaan aan wax badan haysan ha iska dhigin qof taajir ah muuji kartidaada iyo fikirkaaga laakiin wana ha iska dhigin taajir kala duwanaanshaha weydan qurxiyaaye qofka ku jecel xaaladaada sida ay tahay iyo kugu ogolaanaya jacaylka macnihiisuna waxa uu yahay in laysku waaro inta nolosha ay ka haasan tahay haddii aad maanta jisho amba aad iska dhigto qof aadan adiga ahayn soo ma ogid in uu ugu dambayn qofkan uu ogaanayo sida aad tahay markaasina kalsoonida ay yaraanayso khilaafka qoyskana uu soo degdegayo soomaalida waxa ay ku mahmaahdaa beentaada hore runtaada dambe ayay u baasbaxdaa sida ugu wanaagsan waxa ay tahay in dabeecadahaaga aadan qarinin qofka kalena uu kugu aqbalo sida adiga aad tahay sax waad dadaalaysaa waxaad isku dayaysaa inaad noqotid qof wanaajiya dhaqamadiisa waxaad u muujinaysaa qofka aad jeceshay wanaagga iyo quruxda aad leedahay laakiin haw adiga warhooy halays ahaado markaasi waxaad helaysaa qofka adiga kugu munaasabka ah lamaanuhu waxay isu yihiin laba qof oo isu dhammaystira dhinac walba oo nolosha ah jacaylku waxa uu abuuraa qurux oo dhan waxa uuna qofka dhex dejiyaa deganaansho kuna way lahaa sawdaa kowna way ka guursataa ha bilaabin xiriir haddii aadan guur diyaaru ahayn qofna ha ku abuurin jacayl si aad u tijaabiso ha u isticmaalin qofka kale qalbigiisa baashaal xiriirku ma ahan ciyaar geymna ciyaaro hadalla jacayl si fudud aad u dhahayso waxa laga yaabaa qofka kale qalbigiisa inay ku abuurto dareen jacayl kadibna qalbigiisa dhaawac soo gaaro niyadjabna ku dhaco dhaawaca soo gaadho qalbiga mararka qaar wuu ka xanuun badan yahay dhaawaca jirka mar hore anigoo jooga dalka Kenya ayaa wiil aan saaxiibanahay igu yidhi cumarow heblaayo waan jecelahay heblaayo kalena waan iskaga sheekeeyaa laakiin iyada ay jecel labadoodaba hur ayaan ku ballannay maxaan sameeyaa midday igula talin lahayd anigoo yaaban ayaan ugu jawaabay inta aan tala la gaarin waxaa fahmay heblaayo inaad jeceshahay oo aad rabtid inaad jacaylkiinna guuru bedeshaan laakiin waa maxay sababta gabadha kale aadan jeclayn aad guur kula heshiisay inaad xiriir kala hadashid khalad kuma lihid sababta oo ah hal mar xidhiidho badan waad samayn kartaa laakiin ballanqaadiyo iyo jacayl been ah taasi sooma noqonayso khiyaamo jacayl shukaansiga ujeeddadiisu waxa ay tahay waa isbarasho khasabna kuguma ahan inaad qofka guursatid laakiin dareenka jacayl ee beenta ah waa mamnuuc saaxiib ka soo qaad in gabadha aad jeceshahay iyadana haddii ay qof kale guur ka ballanqaaday maxaad samayn lahayd dabcan aad iyo aad ayaduna jabaysaa oo aaminaada dadka shaka ayaad ka qaadaysaa ha samayn ballanqaad haddii aadan fulin karin haddii aad bilaabaysid xiriir yaysan noqonin riyadaada ugu horreeyo kuwa aadan qalbigaaga ka dareemayn si aad qofka kale ugu soo jiidato iyo ballanqaadiyo sababta oo ah waxaa dhacaysa hadhow inaad qofkii barato kadibna aad ku aragto dhaqamo kale asagana oo kuu qaaday jacayl maadaama hadalladaadii bilowga ay ahaayeen jacayl maxaad samaynaysaa markaas